Ariyaha isbitaalka guud ee magaalada Wardheer oo la hadlay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in 16 Hiddaar la bilaabi doono ololaha indhafiiqista iyo daaweynta bilaashka. Ololahan oo ay iska kaashanayaan xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida. Isbitaalka guud ee magaalada Wardheer iyo dhakhaatiir mutadawiciin ah ayaa loogu talagalay in laga xaqabtiro bulshada u baahan adeegyada la xiriira caafimaadka indhaha. maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha November 2025 ama 14 bisha saddexaad 2018 waxaan rabnay inaan fariin u gudbino bulshooyinka ku dhaqan gobolka Doolo maamulka magaalada Wardheer iyo nawaaxigeeda fariintaas oo ah in taariikhdu markay tahay 15 bisha 11 ama 16 bisha saddexaad ee tirska taariikhda dalkeena inuu bilaaban doono ololaha indhafiiqida bilaashka taasoo ka bilaaban doonto hoostaga guud ee magaalada Wardheer barnaamijkan oo iska kaashadeen xafiiska caafimaadka hoostaga Wardheer iyo muwaadiniin mutadawiciin ah oo ugu deeqay bulshada inay uga faa'iideeyaan campaign indhafiiqista hadaba bulshada waxaan ku wargelinaynaa in ay bilaabatay diiwaangelinta loogana faa'iideeyo cid kaste oo la dhiban aragga isla markaana ay ku soo hagaagi karaan waaxda indhaha hoostaga kaasoo atenitam xilli kaste loo diyaar yahay in diiwaangelinta laga qabto isla markaana wixii nidaam la mariyo hadaba bulshada waxaan ugu baaqaynaa in laga faa'iideysto fursaddan oo ah fursad naadira in la helo isla markaana looga faa'iideyn doono bulsho tiro badan oo la dhibaataysan aragga insha Allah faa'iidada bulshada u leeyahay waxa weeye سجود وكامبين مركز كامبين لنا هنا وكا دوين يعني أذيك يصير روتين كوجو سعودي حرمها عافماتك وأذيك لربو أما كامبين لربو اللغة فايدة يو ترب بدن أو ضد أو لا دبان أرجع فايدة له وحوي ضد بدن أو واي خرش أي كوت هجان حرمها عافماتك إذا مركانا أي أما قلين كمران أما دوين كمران فرصة الله كأنه جوري جوده وبلاشة إذا مركانا الله سميني وحكست أو قلينا iyo daweyn baa weeye marka fursad aad ahmeed aad u weyn buu leeyahay bulshada fariinta ugu dambaysa waxa weeye bulshadu inay uga faa'iideyso cid kaste oo la dhiban aragga isla markaana la iska soo diiwaan geliyo waaxda indhaha ee hoostaga taasoo mar horeba la bilaabay diiwaan gelinta adeeguna wuxuu